wafdi ballaaran uu hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud umar ayaa u ambabaxay dhinaca degmada Raaso ee gobolka Afdheer waxaana wafdigu uu sii marayaa gobolada Jarar, Qoraxay iyo Shabeelle iyadoo markii wafdigu ka ambabaxay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjigan uu qaaday jidka laamida waxaana uu sii maray magaalada Qabr Bayax degmada Araarso iyo tuulooyinka ku teedsan jidka laamida iyadoo bulshaduna ay si diiran soo dhaweynaysa wafdiga isla markaana madaxweynaha ayaa bulshadu is xog wareysanayeen waxaana wafdigu markii uu gaaray xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur waxaana halkaas madaxweyne cabdi maxamuud umar xarka ka jaray mashaariic fara badan oo laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur oo ay kamid ahaayeen dugsiga sare ee heerka darajada koobaad iyo madasha shirarka ee gobolka Jarar waxaana dugsiga sare ee heerka darajada koobaad iyo madasha shirarkaba loo dhisay heer tayadoodu sareyso inta kadib madaxweyne cabdi maxamuud umar ayaa kulan la qaatay odayaal dhaqameedka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada maamulka magaalada Dhagaxbuur ee kaga wada hadlayeen horumarka iyo nabadgelyada waxaana madaxweyne cabdi maxamuud umar uu tilmaamay in mashaariicaha socda la dadajin doono ay kamid yihiin leydhka iyo biyagelinta magaalada Dhagaxbuur isagoo sidoo kale madaxweynuhu bulshada u ballan qaaday in mashaariic kalena la bilaabi doono si dhaqsaana loo dhameystiri doono dhankooda qaar kamid ah bulshadii ka soo qayb gashay kulankan ee ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ayaa iyaguna tilmaamay inay diyaar u yihiin sida uga qayb qaadan lahaayeen horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka socda magaalada Dhagaxbuur inta kadib wafdiga ayaa u jarmaaday dhinaca Qabri Dahar isagoona qaaday jidka laamida ah wuxuuna sii maray degmooyinka ay kamid yihiin Burqod, Sheegoosh waxaana wafdigu caawa ku dheelmaday magaalada Qabri Dahar iyadoona berri wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud umar uu xadhiga halkaas kaga jari doono jaamacadda Qabri Dahar oo waqti xaadirkan waxbarashadu si habsami leh ay uga socoto iyo mashaariic kala duwan sida warbixintan uu noogu soo diray wariye Faarax Cabdi oo wafdiga noola socda